waxaad maqlayseen nin la yiraahdo Saalax Guuleed oo wasiir ka soo noqday dawladda Cabdiweli oo yiri dayac qabsaday awgeed dawladda waa lagu xisaabtami doonaa hal lagu xisaabtamo dayaca dawladdan 7 sano ay xilka haysay waad garanaysaan ammaanku sidoo ahaa xilligii ay xilka timi waynu garanaynaa dawladdii Dr. Senator Cabdiraxmaan Faroole argagixisadu iyadoo baxsada oo wax la laayay iyo wax xabsiga ku jira iyo wax dalka ka baxsadaya ayaa Cabdiweli gaas la wareegay maartay xukuumaddiisii dalka faraha ay ammaanku ka baxay agaasimihii guud ee amniga wasiir dawladii amniga wasiirkii amniga taliyaashii qaybaha iyo saldhigyada isku mar la bedelay dad macnaheedu waxa weeye xariga ayaa loo furay ammaanku inuu faraha ka baxo waayo wasaaradda amniga dhamaanteed iyo ciidanka booliska hadii xil laga qaado isku saacad wixii ay faylalhayeen wixii ay dambiilayaal daba joogeen يعني meeshay ka baxayaan dhamaantood wixii ay helayeen dad u soo xog warama oo xogta u keena dhamaan meeshay ka baxayaan waxaad arkaysaa dawladda in salka laga jaray geedka hadii salka laga jaro oo gurma go'an laga dhigo in waxba ka soo baxayn baa la og yahay waxay gaadhay in gaalkacay lagu kala qaxo wax galadkii iyo ganacsatadii maarta in la gumaaday argagixisa gumaaday in masaajidadii la geli waayay oo lagu tukan waayay in wax garadku shanta salaad guriyaha ku tukanayeen kii aan gaalkacay ka bixin xukuumadani alla mahadi markii ay timi 5 sano hore waxay gashay inay inta ammaanka gacan bira ku qabato waxa dib loo habeeyay ciidamada waxa dib loo tirakoobay ciidamada waxa la gaarsiiyay database ciidamada la geliyo in askariga mushaharkiisu isaga u dhaco aanu taliyana u soo marin cid kalena u soo marin inta markii laga gudbay ammaanka waxa laga sameeyay hawlgallo wax ku oola siiba gobolka Mudug ee magaalada Gaalkacyo gacantii dawladda ayay ku soo noqotay magaalada Gaalkacyo ammaan baa laga dhigay in masaajidada lagu tukado in argagixisadii mid la dilay iyo mid la xiray iyo mid baxsaday uu noqday in magaalada Gaalkacyo koonfurteeda waqooyiga ay soo furmeen oo barsaabada isbooqdaan oo meeyrada isbooqdaan oo ciidamada la isku dhafo ee booliska oo ay hawlgallo wada sameeyaan oo burcada iyo tuugadii argagixisada la soo qabto kii la soo ogaado dhinaca kii hawlgallada isku mad ay galaan halkaas laga soo dhaqaajiyay teeramkii hore ee dawladdani halkaas ay ka soo dhaqaajisay waxa ku xigay muxuu ahaayay oo ninka la yiraahdo Guuleed iyo ragiisu ay qayb ka ahaayeen dagaalkii qabyaaladda oo la oran jiray taraha oo madaxweynenimo lagu doonayay dagaalkaasi markii uu fashilmay socon waayo dadka reer Puntland ay diideen oo cidii ay doonayeen ay doorteen ragaasi laba u qaybsamay wax samray oo dadkooda dhinac ka raacay oo ka soo noqday wixii ay sameeyeen ka soo noqday aqbalay in doorasho la galay muxuu ahaa lagu kala adkaaday doorashadii muwaadiniin dalkooda haday shaqo u qabanayaan iyo hadaan ay u qabanaynba maartay kula shaqeynaya dawladda joogto kula shaqeynaya mabaadiideeda iyo shaqada ay qabto iyo mandate-ka ay leedahay inay dalkan u taliso kula shaqeynaya iyo kuwa wali ciil qaba kuwa ciilka qabay waxay isu dhiibeen oo barakacaal siyaasadeed ku yihiin xamar qaarkood xilal bay hayaan qaarkoodna xilal ma hayaan kuwa xilalka haya waxa kamid Cali Xoosh baa kamid Cali Xoosh maantii dhawada madaxweynuhu hadlay wuxuu yiri dayaca waa muxuu ahaayay dhacay dayac ma dhicin dawladdan meeshay dalka ka soo qaaday waa la garanayaa Cali Xoosh maalintii loo dhiibayay wasaaradda arrimaha gudaha oo fiqi u wareejinayay wuxuu ku yiri Puntland taabashay ka rabta marxaladda hadda lagu jiro Puntland Cali iyo ragii la midka ah oo maartay siyaasiyiin dalka ka soo shaqeeyay haddana xilal qabta waxa la rabay inay bogaadiyaan dhiiga askarta iyo saraakiisha reer Puntland kacdoonka dadka reer Puntland go'aanka adiga madaxweynuhu qaatay inay kula shaqeeyaan bay ahayd oo yiraahdaan maartay u naxaan dalkooda laakiin inay soo dhagax tuuraan oo soo hagardaameeyaan oo afkii Daacish ku hadlaysay oo kale ay ku hadlaan yani waa wax aad iyo aad looga xumaado waa arin ka hor imanaysa يعني محو أهاي ضمير كوداني نماذا أرين كهر إيمانيسا وأرين إيجا رجعس أدمودو إنه برحية هاي ويونيك السركال كيسي يا عسكري كيسي يا شعب كيسي يا دولة كيسي يا مدحونه دي إسكو شهق قاعدين وأرجع حس عالمية ونحطها الصومالي أحيان لدى قال ميان نيكا كوكان علا ولا وحوي دولة وحبي قرضي هلا حسابتهم نظام الديمقراطية دا أقول هدي مارتي أي ويهاي مارتي سيدا شرعي ويهاي مركا وحان أوران لها رجاس ماشي أي كنوا ليهين horta ammaankeeda la isku ma halayn karo waad arkaysiin garoonkii Muqdisho
in lagu kala qaxay oo diyaaradii caalamiga ah duulimaadadii joojiyeen in hoobiyaal ku soo dhaceen garoonkii waad arkayseen magaalada Balcad oo 30 kiiloomitir u jirta caasimadda in la qabsaday oo al-shabaab qabsaday oo tan iyo 2012 aan al-shabaab soo gaarin in al-shabaab qabsaday wad maqlayseen cali Axmed macawsleedii ka dagaalamaysay oo 24 saacadood shabaab la dagaalamaysay 24 saacadood kadib markii al-shabaab ay kala qor qaadeen oo 25 nin oo kaliya macawsleey iyagoo ah oo sharika dhimatay 10 dhaawac tahay 15kii ka soo haray muxuu ahaayay 10kii ka soo haray inay dhaawacii ku gurayeen mootooyin ku gurayeen shantii galabnimo maalintii ku xigtay ayaa ciidankii dawladda gurmadkii ugu horeeyay u yimi waxaynu ognahay ciidamada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan yaani dadka Soomaaliyeed inay ka midaysan yihiin inay argagixisada la dagaalamaan ciidamadii la soo tababaray oo lagu soo tababaray Eritrea kuwii Turkiga tababaray yaani inay qorshe la'aan dawladeed iyo siyaasad xumo dawladeed had iyo jeer kala kulmaan dhibaatooyinka markay furimaha dagaalka tagaan waayo taakulaynta inay kala maartay aanay sidii la rabay inaanay taakulayn siinin inaanay muxuu ahaay hogaamin fiican u magacaabin inaanay muxuu ahaay lahayn siyaasad cad oo ay kaga hortagaan la dagaalka argagixisada inaanay dawladda Xasan Sheikh ee Villa Wardhigley inaanay u dejinin ciidamada iyo dhalinyarada Soomaaliyeed sida kuwa Puntland uga jiba keeneen uga adkaadeen bay uga adkaan lahaayeen haday haysan lahaayeen dawlad daryeelkooda iyo muxuu ahaayay hawlgalkooda iyo taakuladooda dawlad ka warqabta oo u naxaysa haday heli lahaayeen laakiin inta furima la geeyo oo taakuda laga goosto oo isgaarsiinta laga goosto in maartay cadow aan u naxayn maartay oo isagu diyaar garoobay ay la dagaalamayaan aad iyo aad baan uga xumahay cali iyo ragga la midkii marxaladda noocaas ay ku nool yihiin dawlad ku sheega itaalka daran ee saa u dhaqmaysa oo garoonkii Muqdisho ammaan ka dhigi weyday oo magaaladii Muqdisho ammaan ka dhigi weyday oo ciidamadeedii hagardaameynaysa dhexdeeday joogan siyaasadeeday la nool yihiin taa inay wax ka sheegaan bay ahayd oo haday hadlayaan taa inay wax ka sheegaan bay ahayd laakiin Puntland oo isku tashatay oo dagaal caalami ku jirta oo shacabkeedii iyo dawladeedii iyo madaxweynaheedii isku aragti ka yihiin sidii argagixisada caalamiga loola dagaalami lahaa kana jiba keenay intay bogaadin lahaayeen inay soo dhagax tuuraan aad iyo aad baan uga xumahay waxaan qabaa inay ma ka noqdeen inay reer Puntland yihiin dhalashadooda inay dafireen inay reer Puntland ba yihiin baan filayaa raggaas Soomaalidu waxay tiraahdaa lama huraan waa caws jilaal warhoy lama hurayo Puntland lama hurayo ninna ma hurayo Xasan sanad iyo bilaa u haray muxuu ahaayay soo baxba ugu xigta uuna bixi doona insha Allah haddii Allah ku dhigo inaydan maartay hoy geedka aad harsanaysaan inaad gubtaan ka daaya baan leeyahay nimankaas geedka ay harsanayaan bay doonayaan inay gubaan ka daaya baan leenahay aflagaadada dadka reer Puntland ka daaya aflagaadada dhiiga saraakiisha iyo askarta reer Puntland oo naftooda horayaasha ah oo ku shahiidaya cadawga argagixisada caalamiga aflagaadada ka daayaan leeyahay madaxweynuhu xilli adag buu go'aan adag qaatay isagoo ku tashanaya shacabkiisa iyo ciidankiisa iyo saraakiishiisa iyo guud ahaan dadka reer Puntland dadka Soomaaliyeedna wuxuu ku bogaadiyay cadawga si isku mid ah askari uu meel joogaba inuu si isku mid ah cadawga u wajaho laakiin nasiib darro halka maartay ciidanka maartay koonfur jooga aanu dawlad maartay u dadaasha garab taagan support siisa moral support siisa waxa ay u baahan yihiin oo taakula iyo agab ciidan la garab taga aanu helayn waxay dib u dhigaysaa adkaantii laga adkaan lahaa argagixisada Puntland argagixisada ay la dagaalamayso Puntland kaliya ma doonay geeska Afrika oo dhan inay qabsatay doonaysay Mozambique bay raadinaysay inay qabsato Burkina Faso hawlgal ka wada Congo ay hawlgal ka wada haday ku guuleysan lahaayeen ay Puntland qabsadaan Allah kama dhige geeska Afrika oo dhan bay qabsan lahaayeen xabarna durduray ku qabsan lahaayeen laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin go'aankii adkaa ee madaxweynuhu xilli adag qaatay dadka reer Puntland la qaateen ciidamada iyo saraakiishu la qaateen saraakiisha iyo ciidamadu dhiigooda u horeeyna ku shahiideen laba walaalay ku shahiideen laba isdhalay ku shahiideen ayaa lagaga jiba keenay waa lagaga adkaaday kuwa maartay xamar laadhuuda ku ciyaaraya hadalladooda deelqaafka ah askarta reer Puntland iyo madaxweynaha baana xalka